السلام عليكم وصاحبك شاهد بيساني فيديوغان waxaan ugu talagalay inaan ka hadlo waa maxay qalbi jab maxaa sababa qalbi jabka sidee uga soo kaban karaa qalbi jabka la socod wanaagsan waa maxay qalbi jabku waa waxaad ku rajo weyneed oo aad heli weyday qalbi jabku waxa loo qeybiyaa saddex qalbi jab aad kala kulantid familka qalbi jab aad kala kulantid asxaabta iyo qalbi jab aad kala kulantid qofka xiriirka idinka dhaxeeyo aad doonaysid inaad nolol la wadaagtid labada hore aan soo sheegay ee qalbi jabka ah ee aad familka kala kulmaysid ama asxaabtaada aad kala kulmaysid maskaxdaadu aad uguma weyno wax weynna kula ma aha laakiin saameyn ayay kugu yeelanaysaa waana mararka qaar waxa laga yaabaa inaad wax tabanaysid aadan garanaynin laakiin waa qalbi jab aad dhan kala soo kulantay qofka asaas ogaa kara markuu dib iskugu laabto qalbi jabka ugu badan ee bulshada ku hadasho qofka xiriirka idinka dhaxeeya waxaan ku xasuusinayaa weego aynu yareen caruurnimada markaan ahayn waalidku waxay noo muujiyeen jacayl boqol ah wax walbo aanu rabno waynu heli jirnay wax walbo aanu doonno si fudud ayay waalidku nagu sii jireen hadalka aan rabno waa ku hadli jirnay sidaa doonana waa u hadli jirnay waan isxanaaji jirnay laakiin waalidku waxa ay ku dadaali jireen inay jacayl aanan xaalad ku dhisnayn na siiyaan nalama aysan gorgortami jirin oo maysan dhihi jirin ilmahan aad jacaylka siinaysid muxuu ku siiyaa maxaad ka faa'iidaa laakiin si walbaba qalad walbo aan samayno jacayl ayay noo muuji jireen waayo waa waalidkeen waxaan ku soo weynaanay jacaylkaasi waxaan ku soo caqliyeysanay jacaylkaasi innagoo aan ku soo barbaarnay in waxna la siiyo ama jacaylna la dareensiiyo baa laga yaabaa inaan xiriir bilowno xiriirkaasi oo sababayo xiise ama caashaq qof baad ka helaysaa gabar baad ka helaysaa ama wiil baad ka helaysaa xiriirka markaad bilowdeen inta ugu horeyso ama bil kadib markii aad qofka wada socotaan kadib xiisihii uu dhammaanayaa waxaad ku soo noqonaysaa qofkii aad ahayd waayo waxaad usoo baratay oo aad ku soo barbaartay in jacayl lagu siiyo jacaylkii baad adigu usoo xiisaysaa oo raadinaysaa oo qofkaana xiriirka la bilowday waxaad isku dayaysaa asiga inuu jacayl ku siiyo asigana wuxuu rabaa ilaan waalidkiisa ayaa soo koriyo jacayl ku soo koriyey in jacaylka jacayl la mid a adiga uu kaa helo labadiinaba laba wado cidlaa baa kala qaadeen waxa laga yaabaa gabadhu inuu ku fikirto asiga muusaan sameeyo wiilkan inuu ku fikiro iyadana saamay samayso waayo labadiinaba laba waalid baa idin soo koriyey oo jacayl idinku soo koriyey waxaad u barateen jacayl in layda siiyo jacaylkii baad rataa inaad gabadha ka helishid ama gabadhu ay rato inay wiilka ka hesho jacaylka aan kusoo kornana wuxuu ahaa mid naxariis iyo karti leh naxariistu waxaan ka heli jirnay hooyo kartidana waxaan ka heli jirnay aabe wiilku wuxuu tabayaa naxariistii hooyo wuxuu ka raadinayaa gabadha inuu naxariis ka helo gabadhuna wiilka waxay ka raadinaysaa kartidii aabe laba wadaa kala haysaan waxaa dhacaysa in meeshii laisku fahmi waayo wiilku wuxuu rabaa naxariis inuu helo gabadhuna waxay rabtaa kartidii aabe oo kale waxaan ha samaynin saan iska daa taladii wanaaggii isfaham waa meesha ka dhacaya waayo ilaan waxaa usoo baratay jacayl inuu adi lagu siiye isfahamaaga markuu ka dhaco meeshu buuqaa badanaya hadalkaa badanaya ismaandhaafkaa badanaya kadib labada qof way kala boodayaan waxaa laga yaabaa bilihii ugu horreeyey in wiilku uu u dhaqmay sida gabadha aabaheed oo kale intii ay qalbiga ku hayso gabadhan waxaa laga yaabaa bilihii ugu horreeyey inay sida hooyadeed u dhaqantay naxariis ay u muujisay intii uu qalbiga ku hayay qalbiga inta yariista uu ku hayo markii la kala boodo waxaa imaanaya dee inaa qalbiga uu kaa jabo waayo qofkan waxay isdhehaysay waa qofkii adiga ku hagi lahaa laakiin isbuuc ama bil keliya ayuu ku hagay ismaandhaafka kadib labada qof waxay ku kala noolaanayaan ciil iyo cara iyo maxaa uga fiirsawaysay iyo waa lii qayaano iyo qalbigaa liiga jabiye iyo
murun. su-aashaas waxa sababa weeye horta qalbi jabka. sidee uga soo kaban karaa haddeeba dhacdaba in qalbigu iga jabay? haddii aad xaalad xiriir ku sugan tahay hadda oo xiriirkaagu buuq iyo muran joogta leeyahay, waxaan ku dhihi lahaa meesha ay wax ka qaldan yihiin waxay tahay adigu waxaad filaysaa in jaceyl lagu siiyo, laakiin waxaan ku dhihi lahaa waxaad ku dadaashaa adigu inta jaceyl aad fili lahayd jaceyl kugu filan waalidkaabaa kusoo siiyey, ee waxaad ku dadaashaa xiriirka aad maanta samaynaysid ama xiriirka aad ku jirtid ku dadaal adigu inuu jaceylka kaa yimaado. ku dadaal adigu haddaad gabar jeceshahay inaad ula dhaqantid sida aabbaheed, adiguna gabar haddaad tahay haddaad wiil jeceshahay ku dadaal inaad ula dhaqantid sida hooyadiis, waayo markaad qaabkaas oo kale u wada dhaqantaan waxaa idii sahlanaanaysa inaad isfahantaan. midkiin midka kale yuusan ka sugin inuu asiga wax bixiyo, adigu marka aad wax bixisid bay wax ku soo gelayaan. haddii hadda aad xiriir ku jirin uu qalbigu kaa jabay, waxaan kula wadaagayaa dhowr talo. waxaa ka mid ah wixii hore u soo dhacay oo wax ku soo dhaafay. qof bila aadana oo qalbiga kaa jabiyey inaad usii dulmanaatid waa liiditaan naftaada aada liidaysid. qof bila aadana oo subaxii markuu soo kaco caday u baahanaya inaad naftaada u liidid waa liiditaan aada naftaada liidaysid. waxa keliya aada qalbi jabka uga soo kaba kartid waxay tahay inaad naftaada ku mashquushid, jadwalka aad ku nooshahay inaad bedeshid. subaxii xilliga aad soo toosi jirtay xilli ka duwan inaad soo toosid, habeenkii xilliga aad seexan jirtay xilli ka duwan inaad seexatid. waxyaabaha aad ku mashquuli jirtay inaad bedeshid oo waxyaabo kale ku mashquushid sida isboortiga, wax akhriska. inaad ku dadaashid mar walba aad walaac iyo walwal iyo murugo aad dareentid inaad bannaanka u baxdid, maskaxdaaduna hawo fiican ay soo qaadato. ku dadaal inaad ismashquulisid, naftaada baratid. ku dadaal maalintii 1 saac inaad meel keliga inta fadhiisatid waxa aad ku xun tahay waxa aad ku wanaagsan tahay aad baratid, waayo qofka kale oo noloshaada kusoo biirayo marka aad naftaada og tahay waxa u sahlanaanaysa inuu si fudud kuula jaan qaado. waxaad kaloo ku dadaashaa isboortiga. isboorti badan oo aad samaysid maskaxda xataa way wanaagsan tahay. waxaad kaloo ku dadaashaa wax walba oo aad isleedahay dhibaato kaaga imaanaysa ama qofkii hore aad ku xasuusanaysaa ama arrin kale imaanayso, waxaad ku dadaashaa inaad ka fogaatid. السلام عليكم. kanaalkayga haddaa ku cusub tahay waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe ii saartid. asxaabtayda haddaa ka mid tahay waan ku salaamayaa. commentigana wixii fariina waad igula wadaagi kartaa xilliga ha ku wacnaado.